soo dhawaada asxaabay familkan iyagoo iska qadeynayo oo miiska qadada fadhiyo ayaa midkan wuxuu u wacaa gabadhooda Kandi iyadana markii ay soo jeesato intuu isdiyaariyo oo faraantigan soo baxsado ayuu wuxuu ku dhahaa ma isguursanayna Kandina arrintan aad ugu farxay waqti dheer ka sugaysay laakiin xariifkan meeshii oo faraanti soo qaadi lahay waraaqadan ku soo dhaxrida baashay Kandina iyadoo yaaban ee waraaqadii soo qabanay hooyadana way yaaban tahay aabana ka reebin waa kana indhuhu taaga waraaqadii markii ay furtana wuxuu ku dhahaa ma haystay lacag igu filan aan ku soo gado faraantigii riyadaada ahay laakiinse waxaan ka ballan qaadaa inaan soo gadi doono Kandina waatana ma ka qasnaba waa iska faraxsan tahay laakiin aabaheed arrintan muusan ku farxin waraaqadii uu ka dafaa wuxuuna ku dhahaa arrintan meeshan ku dhoobeysin ma soconayso Kandi saaxiibkeedna wuxuu u sheegay inuu soo raaco oo raba arrin yar inuu kala hadlo meeshan luuqa intuu soo galo jeegiisa soo baxsanaa wuxuuna ku saxiixaa lacag midkaan wuxuu la yaaban yahay sababta ugu wacay laakiin lacagtii intuu siiyo wuxuu dhaha qaado sababta uu siina lacagta markii uu weydiiyana wuxuu ugu jawaabaa waa mushaarkaaga wuxuu weydiinaa mushaarka ka sheekeynaysid maxaa waay maba kuu shaqeeye odayguna wuxuu ugu jawaabaa hadda kadib aniga ii shaqeynaysaa birito soo diyaari xafiiskayga ugu imaaw shaqo kala kacsana ku siinaaye isagoo sii bixi raba intuu wuxuu dhahaa laakiin aniga shaqaan heestaaye intuu ku qoslo wuxuu ku dhahaa iga jooji kaftankaaga tirada badan haddaba si fiican ii dhageysa wax ayaan rabaa inaan kuu sheego hadalkaygaad maqle oo shaqadii aan ku siiyaa qaadane ama gabadhayda isaga tegay faraha ka qaadee macnaha xoogaa kadib iyagoo qadadoodii iskaga laabtay oo iska qadeynayo ayuu u imaanaa odaygii wuxuu ku dhahaa aniga ma rabi inaa adiga kuu shaqeeyo jeegii lacagta ku qorneed oo loo saxiixana intuu qabto jeexjeexa isagoona miiska u soo saara odaygana arrintaas markii lagu sameeyey intuu isxakameyn waayo wuxuu ku dhahaa gurigayga iiga bax laakiinse gabadhiisa Kandi intay xanaaqday waxay weydiinay maxaa ka wadaa wuxuu ugu jawaabaa gabadhayda ma guursanayso nin shiid ah waxay u sheegay inay isaga aad u jeceshahay lacagna aysan muhiim ahayn odaguna intuu xanaaqo wuxuu dhahaa lacag muhiim ma aha miyay dhahday ka waran hadda intaan taleefankaaga soo qabto aan kaa jibiyo waxaa weydiidaa inuu ku gadi karo taleefankaas sidoo kale katiinkan dhuunta kugu xiran isoo fir adiga milihide waxaad weydiidaa inuu ku gadi karo midaan waan ogaha waxaasoo dhan isaga ma samayn karo wuxuu u baahan yahay inuu kilidiisa gado si uu u gado kuwaan mid ka mid ah odaygana oday caadiya ma ahan wuxuu ku dhahaa jaagadayda iisoo siib adiga maadan soo gadane ma og tahay inaan adduunka dhan isaga wacay dadka dharka sameeyo si ay jaagadan kugu sameeyaan Kandi iyo saaxiibkeedna waxay qabtaanay laayihiin waa kuwana labadooda indhaa ka soo haray odayga oo hadalkiisa sii wata gabadhiisa wuxuu ku dhahaa haddii aad rabtid waxaanoo dhan inaad ka quusato orod hadda bax waxaana raacdaa saaxiibka shiidka haddii aad maqli jirtay hadday rag u baahan tahay waa tan oo kale xariifkaana maba ka qasna wuxuu taagan yahay ma bixi karnaa adiga gabarta ee hadda muuqaalka daawanayana commentiga go'aan ku qaado ugu dambeyn Xaliima go'aan ay qaadanay saaxiibkeed Faaraxna waxay u sheegay inuu ka raali noqdo qofka kaliya ee faraxsan hadda waa odayga wuxuuna ku faraxsan yahay gabadhiisa go'aankii qaadatay Kandi iyadoo ka murugaysan go'aankii ay qaadatay meeshii isaga tagay hooyadeed oo maanta dhan aamusneedna hadday soo hadlay waxayna ku dhahay maxaa sameysay gabarta qulubta iyo qalbiga ka jibisay habeenkii markii la gaaray oo aad muuqaalka leeg saartay odaygii wuxuu u wacday xariifkan